بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back markale. Maanta waxaan hor yaallo chapter 2 oo runtii aad u muhiimsan. Waxyaabo badan ay ku jiraan oo runtii u baahan in la fahmo. Ama chapter 2 waxaan dhihi karnaa mostly wuxuu ka hadlayaa shaqo ama calculation-ka. Marka sida hore baan ku heshiinay caadadan oo ahayd waxaan rabaa inaan ka bilaabo marka ugu horreynba inaan fahmno afartii su'aalood ee basic noo ahayd oo runtii wax badan oo fududeyn karta. Su'aalahaas waxaa ugu horeeyo inaan fahmno marka hore chapter 2 yani muhiimad noocuu leeyahay. Tabcan maxaan u baranaynaa inaan fahmno maxay chapter 2 muxuu ka hadlayaa, inaan fahmno chapter 2 goorma isticmaalnaa, inaan fahmno chapter 2 see u isticmaalnaa. afartii su'aalood ee basic ahaa ayaa mar kasta maxay ku bilaabaa si loo fahmo meesha u socono iyo waxaan eegsanayno. Waxaan dhihi jirnay why we start chapter 2, what is chapter 2, when we use chapter 2 and how to use chapter 2. Haddaan ka bilaabo chapter 2ga maxaa loo isticmaalayaa, aan ka bilaabo chapter 2ga saa aragtaa waxaa ku yaallo waxaa loo yaqaan describing data, xogta in la qeexi karo ee ku taalo ama la sheegi karo. Xog markii la sheegayana waxaa u baahan tahay inaad hesho maxay platform ama way xogtaasi lagu soo bandhigi karo. Marka chapter 2 wuxuu ka hadlayaa xogta in la qeexi karo, la sheegi karo. Kadib waxaa u baahanay inaan caddeyno which platform ama qaabkee xogtaasi ku soo bandhigi karnaa oo runtii laba qeyb ah. xogtiin waxaan kusoo bandhigi karnaa laba qaybood, laba midkood. In xogtii aan kusoo bandhigo qaab table ah, xogtii aan soo ururiyey, organize gareeyey, summarize gareeyey, aan soo bandhigay, aan qeexayo maxay waxaan kusoo bandhigi xogtaas maxay laba qaybood. Inaan kusoo bandhigo xog qaab table ah ama shax ah ama jaantus ah waa kow. Ama in xogtii aan kusoo bandhigo qaab loo yaqaano graph ama chartiyo, statistic markii report la qoraayo ama information-ka soo ururisay waxaan kusoo bandhigi karnaa by table shax oo xariiqan ama by chart. So marka mostly wuxuu noo sheegaa chapter 2ga xogteena sideen ugu soo bandhigi karnaa by table iyo by chart. Waxaan rajeynayaa in la fahmay chapter 2ga muhiimadda uu leeyahay. Wuxuu ka hadlayaa in aan xogtii aan soo ururinay aan soo bandhigi karno qaabkee qaab table ah kow ama qaab garaaf ah labo, wax kale ma jiraan. Marka waa inaan fahamnaa markuu chapter 2 dhammaado waa inuu qof kasta, arday kasta ama qof kasta ee daawanaya videogan waa inuu awood u leeyahay in xogtii oo soo ururiyey oo ku soo bandhigi karo qaab table ah. xogtaas oo xambaarsan information dhammaystiran si loo fahmo kadibna go-aan loo gaaro. Ama inuu xogtaas kusoo bandhigi karo qaab charti ah, sawiro ah oo shax diyaarsan sawiro ah si loo fahmo sawirkaas wuxuu sheegayo kadibna waxay loo gaaro go-aan loo gaaro. Markaas waxaa u soconaa dhanba inaan gaari karno go-aankaas waxay lagu gaari xogtii aan soo ururinay ee lagu soo bandhigay analyze garee kadib maxay go-aan gaar. Okay. That's one. Midda kale waxaa muhiim ah markaan xogta soo bandhigayo, xogta waxaan ka soo hadalnay marka horeba inay markii lagu diro xog ay tahay data ama data saa u naqaanayba. Dataduna ay leedahay many variables. Variabladuna ay yihiin laba yihiin, quantitative variable iyo quality variable, qualitative. Okay, xogta markaan soo ururiyey oo variable ku timaaday, it can be qualitative or quantitative. Marka then markaan tablekan aan sharaxayno waxaa imaan doonto xog aan already aan u haystay qaab qualitative ah oo aan data ahayn, number aan ahayn. Maxaa ka mid matalan colors oo kale, genderka oo kale, maybe wax karsoo aan number ahayn. مثلا سؤالك yes or no كله
questions kale marka maadaama xogta soo aroorin maadaama questionnaire-kaasi ay tahay ama qaab qualitative aan numbereen ama tahay qaab quantitative marka maskaxda ku hayso xogtaan soo bandhigayna table ku shuban maxay it can be qualitative oo ah xog aan number lahayn ama it can be quantitative xog maxay number marka waa inaan ku soo bandhigi karno maxay tayballada imaan doono ama sawirada imaan doono maxay inaan haysano xogteen oo qualitative aan number ahayn sideen ugu soo bandhigi karnaa qaab table ah iyo qaab chart ah isla soo xogteen oo quantitative oo number ah sideen ku soo bandhigi karnaa qaab table ah ama qaab chart ah intaas ayaan chapter 2 aan gudagalnahay ku baran doonaa marka waxaan filayaa in la fahmay meeshii chapter 2 laga galayo oo ahayd laba qaybood in xogtii lagu soo bandhigi karo by table ama by graph inta marka hore chapter 2 bal aan sii gudagal markaa gooleskan chapter 2 laga leeyahay waxa ugu horeeya marka hore inaan organize gareey karno markay tahay qualitative-ka markay tahay waxaan garan karnaa inuu yahay variable aan number lahayn just wax tiri caadi way tusaale ahaan what's your gender female or male ama number sheega waa maya waa qualitative variable way what's your qualification master PhD diploma batch none maxaan sheegnay warbixin aan number ahayn qualitative way where do you live intee ku nooshahay yakshiid kaaraan dharkeynley wadajir hodan waa beri kaxda daynila ama number sheega maya maxay waa variable au naqaan maxay quality way marka waxaan ka bilaabaynaa sidee loo soo organize gareeyaa markay tahay qualitative data laakiin waxaan sameynay qaab frequency table marka that's the point tusaale مثلا waxaan rabaa dad community ah oo degmooyin ka yimid inaan bal soo ururiyo marka kadib aan ogaado dadkaas intay u badan yihiin degmadii ka yimaadeen okay marka ka soo qaad suppose waxaan haysanaa dad kan wuxuu ka yimid degmada wadajir kan wuxuu ka yimid degmada kaaraan kan wuxuu ka yimid degmada maybe daynila kaaraan maybe daynila maybe wadajir yakshiid maybe yakshiid kaaraan kaxda yakshiid daynile kaxda kaaraan waa beri hodan yakshiid dharkeynley again hodan waa beri and so on marka dadka waxaan weydiinay intee ka timaaday waa wadajira ka imaaday kaarana ka imaaday daynila ka imaaday yakshida ka imaaday yakshida ka imaaday kaxda ka imaaday kaxda ka imaaday yakshida ka imaaday daynila ka imaaday kaxda kaaraan wadajir hodan yakshiid dharkeynley hodan and so on marka maadaama aan diyaariyey dadkii responsigooda aan su-aasha weydiiyey su-aashaas oo ahayd qualitative variable xog aan number ahayn maxay ku jawaabeen qofkaan ka yimaaday wadajir qofkaana kaaraan qofkaana daynila qofkaana yakshiid and so on markaas waxaan dhihi karnaa degmooyinka dadka ka yimaadeen degmooyinka iyo frequency marka frequency-ga waxaa loo yaqaana carabigiisa tikraar soo laabasho waay ama soomaaligiisu waa rakaad waa frequency waay marka maxaan samaystay laba column maxaan sameyn rabaa table maxaan haysanaa qualitative variable waa xog aan number ahayn soo ma
okay marka waxaa leenahay fiiri marka aan ka bilaabo wada jir degmada wada jir markaan dhahayo wada jir meeqa ruux ka timid frequency-ga waa kow aha wada jir yes labo saddex ruux waxay ka timid wada jir kaaraan kow labo saddex maybe aan ku daro kaaraan kale afar degmada kaaraan waa afar ruux ka timid yakshiid kow labo saddex afar aan ku daro yakshiid waa shan daynila waa kow waa labo daynila waa two dharkeenley waa kow waa hal bes degmada dharkeenley waa hal qofood keliya waxaa kuu soo haray hodan waxaa ka imaaday keliya waxaa ka imaaday kow labo only two waxaa ugu dambeeyo kaxda waxaa ka imaaday kow only one sorry labo two markaan saanano waxaan haysanaa waa isku dar waa toddobo shan ugeey waa 12 14 15 17 19 maxay tahay marka 19 ruux ayaa xogtaani ka soo ururiyay markaan fiirinayna degmooyinkooda saani u yaala marka waxaan dhihi karnaa 3 ruux waxay ka timid degmada wadajir ka imaaday 4 ruuxna kaarana ka imaaday 5 ruuxna yakshiid waay 2 ruuxna daynil waay hal qofna waa dharkeenley waay 2 ruuxna hodan waay 2 ruuxna kaxda waay waxaan sameynay qualitative variable ayaan ku shubnay xog marka table saa waxaan u naqaanaa xogtan waxaan u naqaanaa inay tahay qualitative variable waa xog aan ahayn number ahayn waa degmooyin waxaa la mid ah kalarada maybe red yellow casaan madow guduud jaalle buluug samee kadibna saan u hagaaji kadib waxaan fahmi karnaa kalaradaas kalarkee ugu badan hadda almost waxay markaan fiirno degmooyinkaas markaan fiirno waxaa ugu badan dadka ima yakshiid ugu badan yakshiid 5 ruux waay dadka kadib waxaa kusoo xigay maxay kaaraan kadib waxaa kusoo xigay maxay wadajir waxaa ugu yar degmada dharkeenley maxaa ka imaaday hal ruux ka imaaday laakiin marka baasha keesaan tahay maxay ma fahmi karno degmooyinka degmada dadka u badan yihiin laakiin markaan table ku shubo waa very easy waa fududahay meeqa ruux haysanaa 19 ruux haysanaa maxaan u fiirinay degmooyinkooda maxaan ku sameynay maxay tablekaas maxaan muujinay degmo kasta iyo wixii kasta kadib waxaan go'aan gaari karnaa hadii kale degmo markaan fiirinay degmooyinkaas waxaa ugu badan yakshiid waxaan ugu yar dharkeenley marka hadhow haddii in case timaado codaan in loo coday maxay codka waxaa qaadan doonahay yakshiid because ida u badan 5 xubin waxay ka timid yakshiid ka timid waxaa kusoo xigay maxay degmada wadajir yaa ka imaaday 3 ruux ka timid marka kamarku waa tusaale waay in maxay la samayn karo haddii xogtaa tahay waxa u naqaano qualitative variable maxaa isku aadinay sheyga quality-ga ahaa ee numberkaan ahayn iyo inta qofooya markaa kan waa sheegii waaye kanna dadkii waaye 3 ruux ayaa soo laalaabatay frequency ahaan oo ka yimid degmada wadajir 4 ruux ayaa ariga frequency waa soo laabasho 4 ruux ayaa xogtaan ku soo laalaabatay oo ka timid degmada kaaraan 5 ruux ayaa waxay soo laalaabatay oo ka timid degmada yakshiid kamarka frequency waa maxay kanna waxaan ka wadnaa xogtii marka halkaas waxaan kaga baxnay sidii loo asan kama tusaale ka kooban waay laakiin it can be kun qofood
laba kun inuu qalinkaa qaado bis wixii kaaran waxay isku calaamaday tiradooda sii yakshiidna tiradooda sii ansoon kadibna ka fiiri maxay degmooyinkaas markaa fiirinaya yani degmada u badan dadkooda degmada u yar degmada kadib go-aan gaar okay waxaan ka baxnay markay tahay xogteena qualitative variable oo aan ku sameynay frequency table waxaa inoo haray inaan ku sameeyo waxa loo yaqaan maxay waxa loo yaqaano chart because waxaan rabnaa inaan barno sida qualitative ku yahay maxay loogu sameeyo table iyo chart kan waxaa u naqaanaa waa table waa shax waay maxaa dhiman inaan ku muujiyo maxay markay tahay qaab oo chart ah chartyada markaan isticmaalayno waxaan samayn karnaa chartyada balan fiirino aan isticmaalayno xaggan waxaan siin doonaa frequency-ga xaggaana marka degmooyinkaan fiiriyo very simple way okay frequency-ga ugu weyn waxaa ugu weyn 5 soo ma ugu sareeyo 5 gaarsii marka 1 2 3 4 5 kan waa 5 waa 4 waa 3 waa 2 waa 1 kaas frequency waa kan waxaa iskale maxay degmooyinka aan soo gaabiyo kan waxaa iskale wadajir kan waxaa iskale kaaraan sorry yes kan waxaa iskale kaaraan kan waxaa iskale yakshiid waa soo gaabay kan waxaa iskale daynir daag soo gaabay kan waxaa iskale dharkeelne dhaaq soo gaabay kan waxaa iskale hodan x soo gaabay kan waxaa iskale kaxda ku soo gaabay khx okay fine marka su-aal marka waxaan rabaa inaan ogaado degmada wadajir meeqa ruux ka imaaday 3 ruux waxaan u fiirino frequency markaan frequency fiirinayo degmada wadajir wuxuu gaaray ilaa xaggaas 3 gaarsi marka 3 ruux degmada kaaraan waa 4 ruux 4 aaway waa kama xaggaas dhaaftiin kaaraan waxay 4 ruux waay waxaa ku soo haray yakshiid waa 5 xaggaas gaarsii yakshiid waa 5 ruux waay yaa ku soo xigo daynile waa 2 waa 2 waa kana 2 qabo xaggaas ku adwal daynile waa 2 ruux waxaa ku soo haray dharkeynley waa 1 ruux xaggaas ku aadi kaas ku aadi 1 ruux waay hodanna waa 2 ruux xaggaas ku aadi 2 ruux kaxda waa 2 ruux waa la mid kaas ku aadi marka kan waxaa u naqaanaa in xogteennii aan soo ururinay oo qualitative ka ahayd aan number ahayn inaan ka dhignay xog nidaamsan organize garaysan kadibna maxay aan ku diyaarinay inay tahay maxay frequency table oo kan ah iyo maxay asigoo chart ah xaggan waxaa noogu yaalo organizing qualitative data into frequency table in la hagaajiyo la isku nidaamiyo xogta aan numberka ahayn loo sameeyo qaab frequency table ah kaas kan waaye kadib waxaa inoo maxay in lagu soo bandhigo xogtii frequency table ka ahayd qaab maxay loo yaqaano bar chartiga waa ka marka this bar chart waxaan ka baxnay xogta inaan ka dhigi karno maxay qaab frequency table ah iyo qaab chart marka kadib waxaan rabnaa inaan go-aan ku gaaro degmooyinkaan soo ururin degmadee ugu badan degmadee ugu yar markaan fiirino frequency table-kana waa dareemi karnaa markaan fiirino chartigana waan dareemi karnaa markaan chartiga fiirino inta yaa ugu dheer waxaa ugu dheer yakshiid maxalle marka dadka badankood waxay ka yimaadeen degmada yakshiid yaa ku xigo degmada kaaraan iyo si dhirirkiisa
yaa ku sii xigo degmada Wadajir yaa ku sii xigo yaa waxaa siman dadka degmada Dharkeenley iyo Daynila iyo sorry degmadan oo Daynila iyo waxaa siman Hodan iyo Kaxda markaa laakiin waxaa meesha ugu yar waxay degmada Dharkeenley waxaa ka imaaday hal roob markaan fiirin muuqaal ahaan midka ugu dheer ayaa ugu badan midka ugu gaabanna waa ugu yaryahay markaan fiirino as frequency table waxay markaan fiirinahay waxaa dadka ugu badan Yaaqshiid because 5 ruux waaye waxaa ugu yar Dharkeenley because 1 ruux waaye marka su'aal aksokoobo qaybtan maxaanu kalifayo in frequency table and frequency charting aan sameeyno waxa kalifayo the answer is xogta intaan ku sameeynin table kan ka hor say qoran xogna asmaa maxaan qornay Yaaqshiid Dharkeenley Kaxda Kaaraan Yaaqshiid at that time marka xaggas marka joog maxay waanu adag tahay inaan go'aan ku gaaro maxay inaan ogaado degmooyinka ugu badan marka maadaama xogta qasanta marka in nidaamsaneen ay organize xogta ahayn inaan go'aan gaaro aan xogta markaan fiirnay dadkan degmada hebel u badan yihiin ma dhihi karo ilaa xogtii aan ka dhigo ama qaab table ah oo u noqona frequency table ama qaab chart ah oo u noqona maxay bar chart and so on soo marka su'aashu waxay maxaan u kalifayo xogtan inaan ka dhigno xog nidaamsiisan waxaan u kalifayo xogta markay nidaamsiisneen waynu adag tahay inaan go'aan gaarno waynu adag tahay inaan fahmo laakiin marka xogta nidaamiyo organize gareeyo aan table ka dhigo aan chart ka dhigo waxa ii sahlan inaan fahmi karo xogta maxay intee u badan tahay inta yar tahay marka waxaan filayaa inta aan kaga baxnay qaybta u bixinay qualitative data aan ku sameynay frequency table iyo chartigiisa